Shukri Xaaji Ismaaciil Bandarle oo ah madaxa hay'adda Candlelight Somaliland ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka weyn ee Cigaal International Airport waxaana soo dhaweynteeda ka dhex muuqanaya wasiiro madaxda xisbiyada iyo mas'uuliyiin ka socota hay'adaha xuquuqul insaanka iyo shakhsiyaad caanka ah Somaliland. Shukri ayaa waxay dhawaan ku guuleysatay abaalmarinta uu bixiyo ururka xasradaha adduunka oo loo yaqaan ICG oo uu guddoonsiiyay madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Bill Clinton. Shukri ayaa abaalmarintan ay ku guuleysatay waxa ay ku heshay horumarinta waxbarashada iyo arrimaha deegaanka. intaas kadib ayaa waxa ay Shukri u mahad celisay dhammaan dadkii ka soo qayb galay soo dhaweynteeda waxaana ay ka warbixisay safarkii ay ugu maqneed dalka Mareykanka. مدة هيك سمعنا لأن بتقريد أي قاعدة يسلم فوق الصفي يا ما أنت هكي تاجن يا كوك وحنا تي كسوس بشيء ولا ينت الحاجة تشوفي ورك يجوين وقلها دي سمعنا بتقريد ما أنت سي سمعنا هكي تاجن تكسوك محان الصميمة inta kale ee Soomaaliya ama dalka Soomaaliya aan wax kaga bedelay hawsha wanaagsan ee maanta oo dawladdeenu deeshadeenu inay gidi ka wada shaqeynayno ayaa maanta qiimaha yeeshay guud ahaan reer Soomaaliland maanta aan halkan ku soo dhaweyno madaxda Cigaal International Airport ee Hargeysa Shukri Xaaji Ismaaciil iyadoo ah gudoomiyaha hay'adda Candlelight isla markaana xilal muhiim ah ka soo qabatay garanaysa hadaynu soo qaadano commissionkii iyadoo ku soo guuleysatay sidaynu ognahay awardkii ama abaalmarintii caalamiga ahayd ee ay bixisay ururka la yiraahdo International Crisis Group. waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaa Shukri Xaaji Ismaaciil oo baaldahaba ka mudan dumarka Somaliland ama aan oran karo magacii haweenka Somaliland bay kor u qaaday iyo soo heshay international award waxaan ka koobanahay qaybihii bulshada hadday tahay civil society iyo hadday tahay xukuumadda qaybihii bulshada kala duwan ee haweenka reer Somaliland. Dr. Adna oo ka hadashay kulankan soo dhaweynta Shukri ayaa waxa ay sheegtay in ay ku faraxsan tahay in ay dalka dib ugu soo laabato. maanta waa maalin weyn farxad weyn oo leh hadaan nahay Somaliland dadka ku nool iyo si gaar ah haweenka aniga waxay farxad dheeraad ah geeyay waayo Shukri Xaaji Bandarle markay ardayda yahay ayaan garanay qiimaha ay leedahay waa qof karti leh waa qof kaalin weyn ka gashay ka qaadatay dib u dhiskii Somaliland markii dalka lagu soo noqday burburkii soo ururinta haweenka iyo danaha haweenka iyo hawlaha haweenka waa qof runtii ku dayasho xoog leh u baahan waa markii ugu horeysay ee gabar reer Somaliland ay ku guuleysato bilada noocan oo kala ay bixiso ururka xasradaha adduunka. Mahad Cabdi Cali, telefishinka caalamiga Somali Channel, magaalada Hargeysa, xarunta Somaliland.